السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا برنامج كيني صدحليدة صوبناها صلى الله عليه وسلم. برنامج كصدحليدة صوبناه هو كل ما قابنا ينكو قادم دون قار كميدا أحاديث صدحليدة هي كسر النبي محمد نصيحة نحريسته يدلك وحشي جيس كل كلجي ماده هي بجار أي ربي وسي النبي محمد شيء جيس تأريه قابن أو معنى يلا أدو بلارن له sidoo kale waxa uu nabigu sallallahu alayhi wasallam xirfad heer sareysa u lahaa kala hormeynta iyo kala habeynta ereyada uu ummadiisa gaarsiinayo kani waa mid kamid ah badda aan xeeliga lahayn ee axaadiistiisa oo ereyo ku astaysan tirada 3 fariinta uu barnaamijkani sidaana waa inaad daawada dhugato oo dheehato ereyada suubanaha sallallahu alayhi wasallam kadibna aad adigu kala baxdo fariinta ay sidaan haddii ay tahay waajib uu ku farayo xumaan uu ku diidayo أما وأنا كعجت من النبي قاعد تعيش هاي أبو هريرة وحوكورني يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم إن أيريه قفك بني آدم كاهمرك ودنته عمل كيسي أردم وأوجايا صدح الرمود مويانه صدح ذا سيء كلاه صدقة جارية صدقة قفك أسعته لبا علم لانتفاع صدق وقفك سيء كتجي هي صدح أو ilmo wanaagsan oo dunida kaga tagay oo u soo duceeya xadiidkan waxa soo saaray imaam muslim xadiidkan nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa uu ku sheegayaa acmaasha in dunida korkeeda qabanayno ee soon iyo salaad iyo sako iyo waxyaabaha kale ee adduunyo aakhiraba aynu shaqaysanayno in qofku marka uu dhinto ay halka ku istaagayaan marka laga tago 3 arrimood oo iyaga ajarkoodii uu inoo sii soconayo waxa ugu horeysa sadaqatin jaariya haddii qofku صدقات ولبحه صدقات دا سوسي سconaysa sida inuu ceel qoday sida inuu masaajid dhisay sida in uu marka waxa weeyaan wax ajarkiisa uu sii soconayo intii aanu dhiman uu sii qabtay qodobka labaad waxa weeyaan aw cilmin yuntafacu bihi aqoon la intifaacsada inuu dadka baray hadii uu macallin ahaa ama uu waxa weeyaan si kalaba cid u gaarsiiyay aqoontaas inta ay sii jirto ee la sii kala dhaxlayo ajarkeedii uu u soconaya qodobka ugu dambeeyay ee saddexaadna waa inuu qofku dunida kaga tagay wiil ama gabadh uu dhalay oo wanaagsan oo u soo ducaysa markasta wuxuu nabigu kaleey salaatu wasalaam xadiid ku sheegay qofku isagoo qabrigiisa iskaga jira in mararka qaarkood darajaad kor loo qaadayo kadibna uu isweydiinayo oranayo ilaahu waxaan maan shaqaysan xagee ayaan ka keenay kadibna lagu oranayo ilmahaagii wanaagsanaa ee aad dunida kaga timi ayaa ku soo duceeyay ilaahay عملك خيرك adduunka inta aynu ku noolahay hayna waafajiyo si uu inoogu sii socdo marka aynu dunida ka tagno. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.